walaal cabdiraxmaan aniga ma xiiseeyo xiriirka jacayl ma jecli jacaylka waan ka baqaa weliba aad baan uga baqaa jacaylka waa laisku qiyaamaa fadlan iga dhaaf jacayl ma baahni xiriir jacaylna ma rabo walaalnimo iyo wanaag waa tan naga dhexaysa ee teena ma ku wadan karnaa iima maxanin waa naxay weliba naxdin saa'ida korkayga oo dhan dhidid baa wada qubay waayo waxaan ahaa qof ku qanacsanaa sheekada lala wadaye isdhahay jacayl walle wuu dhalan karaa kadib waxaan la sii sheekaystay muddo dheer oo aan ku sheekaysanaynay si walaalnimo ah sheekadeenna waxay noqotay mid qurux badan waxaan ahayn dad habeenkii dhammaan sheekaysanaya kaftamaya qoslaya isku faraxsan weliba aad u malaysid inay yihiin dad isku dhow saaxiibba ah isna dareemaya haddana kaftankeena iyo sheekadeenna mayse dhaafi jirin aboowe abaayo aboowe abaayo aboowe abaayo oo keliya maysan jirin macno kale oo sheekadeenna lahayd mayse lahayn ciwaan kale oo ka baxsan walaalnimo maysan jirin mawduuc kale aan ka hadli jirnay markii laga reebo qaab walaalnimaa saaxiibtinimo iyo kaftan laakiin anigu ma ahayn ruuxay u dhadhamayso waxyaabahaas oo dhan waayo waxaan ahaa ruux u buka jacaylka qofkan waxaan ahaa ruux danaynaya hasaawaha gabadhan waxaan ahaa ruux raba sheekada gabadhan waxaan ahaa ruux mar walba soo jiidanaya dareenka gabadhan oo u sii qaadayo waayo markii walaalnimadii la wadaagaysay baaba kasii macaan badnayd markaan hore u aqaanay waxay sababtay xitaa maasenjarkayga hadduu sheeko la jaamgaraysmayo inaanan jawaabin fariimaha qaar aanan furin xitaa fariimahoo dhan aan raacdeen inaanan furin keliya aan furo fariinta gabadha aan raadiye hadalkeeda hadday online tahay ku farxo qadka markay soo gasho aan u dhararo hadday qadka ka maqan tahay aan xiro moobeelkayga si aanan isticmaalkiisa iskugu mashquulin facebooka waayo maba ii bixinba laakiin markay qadka soo gasho maanan ahayn ruux ku sheekeeya xabiibtii noloshaydii jacaylkaygii waan kuu xiisay dareenkaygii waan ku tabay may ahayn keliya waxaan ku sheekaysanayna ha abooy maanta meeshaasaan ka baxay abaay saas waay oo keliya kaftan sheekadii waxyaabaha maanta la qabtay laakiin aniga waxaa oo dhan waxaan u arkayay maalaayacni malabaysan ama maalaayacni aniga ii macaan waayo mararka qaar markuu jacaylku hayo ama dareenku hayaba waxyaabana ku dhadhami jirin baa ku dhadhamaya mararka qaar waxaan sheeko macaan u arki jiray markii laga sheekeynayo cashada ay karinayso qaabka u karinayso xitaa waxaa dhici jirtay in layga sheekeeyo musasal aanan xitaa daawashadiisa weligay isku dayin laakiin markii laga sheekeynayo aada u macaansan jiray xitaa mararka qaar marka agtarka la soo qabto anigoona weligay maqal waxaan u sharxi jiray sida u macaan ayada waa cajiib wallaahi musasal dhaaf inaan daawadee ku mariyoonin mar inaan u fadhiista dhalada haddana dareenka keliya ee qof qurxin kara waxa weeyaan in aad ugu sheekaysid xanaanka uu isaga doonayo si ay u qurux badnaato waxyaabaha adiga kaa doonayo taana waxay ii suurtagelisay inaan musalsalka u aqbalo in layga sheekeeyo sidii inaan xiisaynayo oo kaleba waxay sheekadu sidaa ahaataba waxaa dhacday habeen inay soo wacday gabadhii si lama filaana wixitaanka maanan filayn haddana waxay ii soo raacisay markay soo wacday hadal aniga aad cajiib igu ahaa waayo waxay tiri waxaad tahay wiil wanaagsan waxaad tahay wiil soo jiidasho leh waxaad tahay wiil kaftan badan waxaadna tahay wiil aad macnaha anigaan kaga helay haddii aan rabi lahaa inaan xiriir sameeyo wallaahi waxaad noqon lahayd ruuxa koowaad aan xiriirka iyo jacaylka la sameeya aniga cajiibba ha ahaatee anigu musalsalaad fara badan sheeka aan xamili karin intaba dulqaadkeeda waxay ii geysaa ammaantaasina waxay ahayd mid aniga aad ii farxad gelisay waayo waxaan xaqiiqsaday inaan noqday ruux u soo yaro dhowaaday gabadha sidii hore oo kaga fogaa